waxaan noqday ra'iisul wasaare ku-xigeenkii ugu horreeyay waxa laga yaabaa in ayna wax weyn idin la ahayn laakiin wax weyn ah ra'iisul wasaare ku-xigeenkii ugu horreeyay ee xafiis yeesha 20 sanadood ugu dambeeyay ra'iisul wasaare ku-xigeenadii hore waa ii yimaadaano waxay u yiraahdaan warriyo waxa tahay ra'iisul wasaare ku-xigeenkii ugu horreeyay xafiis yeesha mid hoosaan ka soo bilaabay laakiin hadda waa space weyn oo ballaaran markaan dhammaystiray ayaan ra'iisul wasaarihii hore u tagay Xasan Cali Khayre waxa ku nimo rabo inaan ka xafiis qurux badnaadee furahan igala wareeg wuxuu ugu yiri waad u qalantaa xafiiskaaga ku shaqeyso adiga leewaay marka shaqada halkii ka sii waxay yimid safiirka Turkiga oo ra'iisul wasaarihii intuu la soo kulmay ka soo baxay dabaq ugu sareeyaan deganahay xafiisaadu qurux badan weeyeen wuxuu yiri niyo ra'iisul wasaaraha inuu ka xafiis koobnaada ma garba maxaad ugu wareejin weyd waxaan ku tago ku noqo waxaad ku tira xafiiska markii la dhameeyay furaama kugu wareejiyay ra'iisul ya marka isu haneyntaas iyo kalsoonida runtii aniga iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waa naga dhaxaysay aad baan ugu mahadcelinayaa 3 sano iyo badh oo aanu soo wada shaqeynay sidii wanaagsaneyd ee way gacan qabtay shaqooyin badan run ahaantii igu wareejiyay xilku waa meerto qarankanina ama qaranka Soomaaliyeed dib u dhiskiisu waa qori isu diidib hadba meesha la soo gaarsiiyay ay tahay in laga sii qaado waa halkii saaxiib qamaan hore u yiri rag waxaan ku maamulay aqaan ama ku maamuusi mase inaan nahay xilkuna meertano yahay halganka dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed uu socdaa the struggle continues aluta continue waxaan u mahadnaqayaa u mahadcelinayaa ugu horeyn madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo fursadda ra'iisul wasaare ku-xigeen in aan noqdo isiiyay iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo aan 5 sano iyo badh hadda muddada ah ku sinaa labadoodaba doorkii wada shaqeyneed aanu lahayn run ahaantii